waxay yiraahdaan are you using your phone or your phone is using you? Teleefonkaaga ma adiga isticmaalaya mise asaga ayaa ku isticmaalaya? Taa waxaa loola jeedaa Facebook ma soo gashaa marka aad ugu tala gasho amaba waxaad soo gashaa adigoo aanan is ogeyn. Haddii aad social media aad is aragto adigoo ku dhex jira sabab la'aan, waxay ka dhigan tahay teleefonkaaga asaga ayaa ku isticmaalay. Waxaad u baahan tahay in aad dib u eegis ku samayso halka uu ku baxayo waqtigaaga. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Qaybtan waxaan ku sharxi doonaa waxyaabaha aad u baahan tahay inaad ogaato haddii aad doonayso inaad noqoto qof wax isbaraya oo ka faa'iidaysanaya fursadaha laga heli karo internetka. Waxaynu naqaanaa sida caadiga ah in mobiladu dadku aad uga sheegtaan in ayna yihiin halka uu ku dhumo waqtigooda inta badan. Si aan isula fahanno masaladaasi, waxaynu u baahannahay inaan isweydiino hal su'aal. Waxay sheegaan inta badan 2,000 oo jeer in ka badan inuu qofka caadiga average-ka celcelis ahaan dadku ay taabtaan teleefonkooda maalinkii. Taa waxay ka dhigan tahay inaad isweydiiso adiga teleefonkaaga ma waxaad isticmaashaa xilliga keliya aad u baahato oo aad ka leedahay dan muhiima, mise waxaad is aragtaa adigoo isticmaalay. Facebook ma soo gashaa marka aad ugu tala gasho amaba waxaad soo gashaa adigoo aanan is ogeyn. Waxaa jira hab aad uga faa'iidaysan karto social media adigoo aanan gebi ahaanba joojin. Social media aan isticmaalno inta badan laga soo bilaabo Facebooka, YouTube-ka, TikTok-ka iyo wixii la mid ah, dhammaan waxay ku shaqeeyaan artificial intelligence. Waxayna isku dayaan in ay ogaadaan waxyaabaha aad adigu sida gaarka u danaynayso si ay kugu soo bandhigaan. Artificial intelligence-ga ama caqliga macmalka oo uu isticmaalo social media waxa uu ururiyaa waxyaabaha aad ka dhex samaynayso social media. Waxa uu fiiriyaa waqtiga aad ku bixinayso postiyada iyo waxa ay yihiin. Waxa uu fiiriyaa postiyada aad like saarayso, kuwa aad share aad ku samaynayso oo qof kale u dirayso, amaba kuwa aad commentiyada ka qorayso. Kadib waxa uu isku dayaa inuu kuu soo badiyo waxyaabahaasi. Haddaba haddii aad comment ka bixiso ama aad like saarto muuqaalkani, Facebook waxa uu arkayaa inaad danaynayso muuqaalada noocan ah, kadib waa uu kuu soo badinayaa. Haddii aad taa isla fahanay, waxaad samayn kartaa in aad yarayso dhammaan reactionada aad ka bixinayso muuqaalada iyo postiyada aadan adigu danaynayn ama aad u arkayso inaysan wax kugu soo kordhinayn. Taa beddelkeeda waxaad raadsan karaysaa guruubyada ama page-ka ama shakhsiyaadka ugu caansan takhasuska aad barato, adigoo ka bixin kara comments, reaction ka samayn kara, like iyo share ku samayn kara. Taa waxay kaa saacidaysaa in uu isbedelo waxyaabaha aad ku arkayso social media guud ahaan ayna noqdaan wax aad si 100% aad uga faa'iidaysan karto. LinkedIn waa website la mid ah habka uu u shaqeeyo Facebooka, balse aad uga duwan. Sababtoo ah waxaa isticmaala dadka xirfadlayaasha ah, dadka ka shaqeeya shirkadaha, dadka maamula shirkadaha caalamka, waxaana la soo dhigaa keliya waxyaabo ka tarjumaya qofka xirfadiisa iyo background-kiisa shaqo iyo wixii la xiriira. Sidoo kale halkaa waxaad ka heli karaysaa fursado fara badan sida koorsooyinka, scholarship hadday noqoto, amaba waxaad xiriir dhow la samayn kartaa dadka ka shaqeeya shirkadaha. Waxaad ku biiri kartaa guruubyada ay ayagu leeyihiin oo aad halkaasi postiyo soo dhigi karto, aadna uga faa'iidaysan karto sidoo kale waxyaabaha ay dadku kala halkaasi ku wadaagaan. LinkedIn haddii aadan horey u lahayn, waa muhiim in aad samaysato. Waxaan idinla wadaagayaa courses gaaban oo sharxaya habka aad u samaysan karto account aadna ka dhigi karto mid professional ah. Koorsooyinkaasi af Carabi ama English labaduba waa ay jiraan. Qofkii u baahan ku soo qor qaybta hoose ee commentiyada LinkedIn si automatic ayaan kugu soo diri doonaa koorsooyinkaasi messenger-kaaga.